kulanti wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin kuna soo dhawaada barnaamijka codka dhalinyarada oo aad ka dhageysataan raadiyaha Danjir. barnaamijka codka dhalinyarada oo ah barnaamij aan ku soo qaadano fikradaha iyo dhammaan arrimaha kala duwan ee saameeya dhalinyarada. waxaan maanta uga hadli doonaa qodob aan filay inaad aad uga heli doontaan kaasoo ah maalinta Valentine's Day-ga ama maalinta jaceylka oo ku beegan bisha February 14keeda. waxa meelo badan oo caalamka kamid ah si weyn looga ciidaa sanad walba markay 14ka bisha Febraayo ku beegan tahay ciida la magac baxday Valentine's Day oo dad badan u yaqaanaan maalinta jaceylka adduunka. haddaba maalintan xambaarsan jaceylka adduunka oo dhan waxa isweydiin leh horta maxay tahay sideena ku bilaabatay jiristaankeeda. su'aalahaas iyo kuwa kaleba oo ku saabsan maalinta Valentine's-ka ayaan barnaamijkeena codka dhalinyarada ee raadiyaha Danjir ku soo qaadan doonaa iyadoo waliba aad maqli doontaan fikrado kala duwan iyo Sheekh Mahdi Warsame oo kamid ah mas'uuliyiinta Masjid Salaama oo inaga siin doona warbixin maalinta jaceylka ku saabsan. anigoo Basra Maxamed ayaa barnaamijka idin daadahayn doona ee ku soo dhawaada mar kale iyo codka dhalinyarada. waa hagaag saan hore u sheegayba maanta barnaamijkeena gabi ahaan wuxuu ku saabsan yahay Valentine's Day-ga. haddaba waxaan fursad u helnay inaan dhalinyarada magaalada qaarkood ka wareysano siday u arkaan maalintan iyo hadday u ciidaan iyadoo fikradahooda ay kala duwanaayeen. haddana balan idin soo hormariyo qaar kamid ah fikradihii. magacayga waxaa la dhahaa Cumar. Valentine's waa u ciidaa waxaan u arkaa inuu shay fiican yahay marka waxaa waqti la qaataa xabadna adduunka ugu jeclaa marka fiyoorada u geeyaa oo wada casheena waqti aan wada qaadanaa shaleemaan wada galnaa marka waxaan arkaa wax fiican inuu yahay Valentine's Day-ga waxa waaye maalinta jaceylka adduunka caalamka intiisa badan oo maaragtay dabaaldego oo jaceylka macnaha mid guur iyo mid kuwa isqaba iyo kuwa saaxiibada iyo kuwa macnaha nolosha mustaqbalka kale intaba ay maaragtay ku wada qaataan oo u dabaaldegaan oo ay xusaan maaragtay asxaabta xataa isku dhow. waa maalin jacayl magaceeda haddaan dib u soo gaabino shakhsiyan aragtida aniga aan ka haysto maalin jacayl waa maalin wanaagsan oo macnaha mudnaanteedii leh macnaha kuma magacaawna xumaan sida maalinta nabadda iyo maalinta jacaylka iyo horta nin dhalinyaro aniga ahay aragtidaan ka qabano maalin fiican waaye waana u dabaaldegayaa maalin walbana wuxuu ku fiican yahay horta jacaylka hal maalin ma ahee in maalin walba loo dabaaldego laakiin mararka qaar inaad xasuusan baa laga yaabaa sida maalinkaasoo kale waqti haddaad haysid waxaan ku baraarujin lahaa shacabka Soomaaliyeed kuwa isqabo kuwa kala maqan iyo kuwa wada joogaba waa maalin xasuusin madane maalin walba horta xaaskiina iyo noloshiina waa inaad jeclaataan iyo dadkiina haddaasan nolosha shaqo iyo wax kale lagu mashquulay anigu ma haysta intiina haysta u dabaaldega gabadhiinana waxaa waaye ama fiyooro ama wax aad uga farxin kartaan ama hadal ama eray ama meel casha hadii loo wadi karo ama hadii ma aragti guriyiinaba xataa ku wada dad isqa waqti fiican ku wada qaadanaysaan aad baan u jecelahay oo lana dadaamaya shacabku inay u dabaaldegaan inta ka faa'iideysan karto ama jacayl haysto jacaylku macnaha waa nolosha qiimaheedii waa wuxuu ku dhisan yahay marka kuwa isjecelna Allah u siyaadiyo inta kale tana waxa weeye siday u abuuri karaan oo kasta wada kasta u marto aad ha u sii qaadan baan leeyahay. I believe Valentine is for two people who love each other that celebrate their love without any conditions. I feel like it brings joy and happiness to both people, in my opinion.
and it's a beautiful celebration. I can't even describe it in words. That's the only time that you actually feel special in this holiday, you know. And every day is not Valentine's Day. Every day is not a holiday. So I guess it's very valuable. Bismillah. Marka hore waxaan ku bilaabay magacayga aniga waxa la Cabdikaafi Axmed Baroy waxaan u mahadcelinayaa walaashayda qaaliga ah ee ugu martiqaaday barnaamijkan inaan ka hadlo waxaan kala salaamayaa dhageystayaasha sharafta leh haddii aan ka hadlo marka su'aasha la weydiiyay oo soo noqdo maalinka Valentine Day ee February 14ka anigu shakhsi ahaan ma aaminsani maalinkaas si khaas ah oo ma dabaaldego sababtuna waxay tahay bulshooyinka caalamka kula nool waxay kala leeyihiin kala jara kala duwan marka aniga wadankan ka imaaday oo dhashay Soomaaliya oo aan jeclaa loogama dabaaldegi jirin si khaas ah maalinka Valentine Day-ga laakiin halkan imaanay waxaan arkay maalinkaas inay maaragtay Soomaalida ama bulshooyinkan ay u imaadeen ay ku raacsan yihiin oo dhalinyaro fara badan u dabaaldegeen si khaas ay u qadariyaan aniga marka waxaan horta xaas leh anigu xaas baan leeyahay jacaylna uu soo maray aad baan u jeclaa xaaskayga marka maalin kasta anigu waan u dabaaldega xaaskayga haddii maalin aan khaas ka dhiganayana waxaan ka dhigtaa maalinkii aan guursaday xaaskayga special ani haddaan in sheega hadda dhegeystayaasha ani xaaskayga waxaan guursaday 3 bishii 3aad ee 2006 marka maalinkaas anigu u dabaaldegaa iyo mar kasta oo aan xaaskayga la joogo oo maaragtay aan jeclaa inaan farxad dareensiiyo kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada reer Columbus iyo fikradaha ay ka qabaan maalinta jacaylka ama Valentine's Day-ga haddana aanu gudubno warbixinta uu inoo hayo Sheekh Mahdi Warsame oo ku saabsan maalintan marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka codka dhalinyarada Sheekh Mahdi tan xigta waxaan rabaa inaan ka wareysto waa la socotaa inuu malaynayo waxa jira bishan dabaaldegii ama dadkii caalamka oo dhan waxay uga ciidayaan ciid la yiraahdo Valentine's Day oo Soomaalida qaarkoodna ugu magac dareen maalinta jacaylka marka arintaas waxaan rabaa inaan marka hore ka wareysto sida dadka Soomaalida marka hore ku soo gashay arintaas ama sida ugu dhalatay Soomaalida iyo fikradda guud ahaan ay ka qabaan dadka aad ka qabtid aad iyo aad baa mahadsantahay Basra horta marka hore maalinta maalin munkar ah weeyo oo aad iyo aad u khaldan in la dabaaldegana aysan banaanayn waxaan rabaa marka si dadku u fahmaan maalintan waxa ay tahay inaan xogaa taariikhdeeda iyo maalintan sida ku timi oo runtii la isku khilaafsan yahay hataa dadka dabaaldega aysan garanayn meesha ka timi inaan wax yar horta dadka u sheego kadibna aan maaragtay wixii dhibaatooyinka ay yeelan karto arrinkan iyo diiniyan sida u khaldan tahay aan yar ka iraahdo midda taariikhda maalintan Valentine's Day waa maalin ka timid xilligii dawladii ama imperatoriyadii ama boqortooyadii la oran jiray Roomaanka ayay ka timid sidaad ogtihiin boqortooyadaasi laba xilli bay soo martay xilliga ay sheegteen diintan Kristiyaanka ama Masiixiyadda inay haystaan iyo xilligii hore oo ay mushrikiinta ahaayeen ama paganism ama diintii wathaniyada ama sanam caabudida ay ku sugnaayeen marka arintan waxay ay salka ku haysaa waa arin ka fac weyn xataa diinta Kristiyaanka ee hadda ay sheeganayaan oo sida iyagu u sheeganayaan xataa arin asal kula maaha waa arin ay dabaaldegi jireen xilligii boqortooyadii Roomaanka waxaana la yiri waxay ahayd maalin ay u dabaaldegaan waxa la oran jiray fertility day ama maalin ay u dabaaldegaan taranka marka waxa la iswaafajiyay waxa la yiri beeraha marka ay beeruhu ay maaragtay ininta lagu rido iyo xilliga maaragtay dawladda boqortooyada laftigeeda la asaasay ayay isku maalin ka dhigeen oo bisha February dhexdeeda ay u dabaaldegi jireen kadibna waxa la sameyn jiray waxyaalo aad u munkar ah oo qaab daran oo u dhow
waxaan istunka la yiraahdo dadka reer goleedka Soomaalida qaarkood ay sameyn jireen mesela waxa la sameynayaa waxa meel god abaa la tagayaa oo la yiri dadkii godadkaas waxa lagu koriyay dadkii asaasay labadii nin ee boqortooyada Roomaanka asaasay ayaa godka lagu soo koriyay si iyagu aaminsanaayeen dabadeedna meesha waxa lagu gowrici jiray neef idaa iyo neef idaa iyo baa la gowrici jiray marka la gowracana neefka idaha baa haragga laga bixin jiray dabadeedna dumarka magaaladaas jooga ama meesha jooga soo safan jiray dabadeedna midii haraggaas taabata waxay aaminsanayd inay wax dhalayso oo ay ilmo dhalayso maaragtay dabadeedna waxa la sameyn jiray dumarka magaalada jooga oo kuwa aan guursan baa la soo safi jiray dabadeedna mid walba qof baa lagu aadin jiray nin baa lagu aadin jiray oo la oran jiray ka doorta dabadeedna mid walba marka nin baa ka xaysan jiray hadhow marka waxay sameyn jireen muddo kadibna way isguursan jireen si iyagu leeyihiin maaragtay marka saasay sameyn jireen markii boqortooyadii ay yiraahdeen diintan masiixiyadaan qaadanay oo saad la socotaan ninkan Paul waa kii bilaabay maartay inuu yiraahdo masiixi weeye kadibna boqortooyadii oo dhan waa tii alla yiri waxa lagu xukumayaa diinta masiixiyada yaa waxa loo bedelay magacan Valentine's Day okay waxa dhacay sida taariikhdu leedahay markii ay boqortooyada Roomaanku qaadatay diinta masiixiyada sida ay iyagu u yaqaaneen ba waxa jiray bay yiraahdeen dhowr nin oo ay yiraahdeen waa shahiideen oo diintay u shahiideen nimanka marka saddex nin baa marka magaca wada yeeshay oo mid walba magaciisu Valentine aha marka mid kamida baa waxa la oran jiray Saint Valentine saint macnaheedu waxa weeye waa weli marka waa weligii Valentine magaciisa la oran jiray marka ninkaasi meeshan Malta miya meelahaas Talyaaniga areadaas ku noolaa marka boqorkii baa wuxuu soo rogay boqorkii Roomaanka wuxuu ogaaday waa ku dagaalami jiray wadamo badan qabsan jiray marka wuxuu ogaaday dadka aan guursanay dhalinyarada ah inay sahlan tahay in ciidan laga dhigo oo ku xaasas kale ay ku adag tahay dhalinyaradii marka wuxuu ka mamnuucay inay isguursadaan oo wuxuu yiri qofku waa inuu khasab ciidanka dadka waa la raafi jiray askarta khasab loogu dari jiray marka waxa dhalinyaradii laga mamnuucay inay guursadaan dhalinyaradii markii laga mamnuucay inay guursadaan yaa nin wadaadadii masiixiyiinta kamida oo magaciisa ay ku sheegeen Saint Valentine waana ragga la sheego mid kamida sheekada qaabab badan baa loo sheegaa waa qaababka mid kamida ninkii baa wuxuu go'aansaday inuu dadkii isu guuriyo oo uusan maaragtay oo asi underground oo qarsoodi oo isku nikaaxiyo dhalinyarada rabtay inay isguursato kadibna waxay leeyihiin sidaas maaragtay maalintii ninkaasi marka uu maaragtay uu dhashay iyo maalintii la dilay bay u badan tahay maalintuu dhashayna waa la yiri maalintii la aasayna waa la yiri yaa waxaa laga dhigay boqortooyooyinkii dambe ee masiixiyiinta yaa waxay Roomaanka waxay ka dhigeen maalin la dabaaldego oo ninkii loo dabaaldego la yiri weli buu ahaa oo maalintii loo dabaaldego waxa dhacay sheekada si kalena way sheegaan waxay yiraahdaan waa la xidhay oo arinta darteed baa lagu xidhay dabadeedna intuu xidhnaaba warqado jacayl uu xabsiga ka soo qorayay oo wuxuu u qoray ninkii qoladii xidhay gabadhiisii buu jeclaaday warqado u soo qoray kadibna boqortooyadii marka ninkii waxa la yiri waa la dilay ninkii uu shahiiday waayadan baa waxa la yiri ninkii waa weli kadibna waxa la bilaabay maalintii la aasay in loo dabaaldego haddaba su'aashu waxa weeye sidee jacaylka iyo ninkan isugu xidhmeen waxay isugu xidhmeen markii boqortooyadii Roomaanku meesha ka baxday oo dawladihii reer Yurub ay kala go'een oo Mareykan waxaan leeyahay Ingiriis iyo Talyaani iyo Faransiis iyo galbeedka Yurub dawladihii waxay bilaabeen shacabkoodii iyo dawladihii inay maalinta u aqoonsadaan maalin ciid ah oo maalintii jacaylka ah sidaas darteed waxaa la sameeyaa waxaa la isweydaarsadaa warqado jacayl bay dadka dhalinyarada ah isweydaarsadaan
qof baa مثلا gabadha wiilkay u qoraysa xilada waa ku jeclahay hadallo wadnay ku sawiraysaa wadnihiyo matalaya jacaylka maarta wiilashina sidoo kale sameynayaan waxa dhacay marka arintii marka waxay noqotay waxa laga dhigay wax dhaqan ah oo la yiraahdo maalinta jacaylka laakiin asal markii hore diin wathaniya oo shirkiga ku salaysnayd waxay leeyihiin ragga taariikhda qoraa dawladda Roomaanka ee Masiixiyiinta ahi arinta waxay u sameeyeen waxay isugu aadiyeen maalintii jacaylka loo dabaaldegi jiray iyo maalintii ninkan la aasay ee la yiri wali buu ahaa waxay isugu aadiyeen si ay arinta dadkii markay deyn waayeen dabaaldegii iyo si ay arintii u yiraahdaan waa diin oo diinta Masiixiyada meel looga soo geliyo ayay u sameeyeen bay dadku yiraahdaan dawladda boqortooyada Roomaanka markay meesha ka baxday dadkii ay u talin jirtay oo maarta galbeedka Yurub ayaa sii waday dhaqankii Mareykanna maadaama halka ka soo jeedaan oo markay wadankan Mareykanka dadkii Yurub ka soo haajiray halkan yimaadeen dhaqanka Yurub bay kala yimaadeen dadna Mareykanna way keeneen sidii baa looga dabaaldegaa mahadsanid marka hadda xogaa taariikh aad naga siisay oo taariikhda inkastoo taariikho kala duwan ay yihiin sida la sheegay Valentine's-ka sidoo ku bilowday haddana taariikh guud aad naga siisay laakiin qaybta ahayd Soomaalida asalkeeda meeshuu ka soo galay Valentine's Day-ga dabaaldegiisa ma inoo sheegi kartaa su'aashu marka waxa weey Soomaalidu xagee ka soo gashay Soomaalidu waxa la yiraahdo af Soomaaliga lagu dameer dhan raacday يعني ويسكر راعين ما قرنيان وحنا وحيتهاي إن الدين مسيحية يشرك الله كل هذا هنا ما يقانين إن فسق فربضان يفساد فربضان وكوه استشرو أو ما ركتي وهذا الله بدان أو فسق اللي يسوي دار سدنا ما أي أوجا ما ركتي مركز داد دتك والدين تا waxaa kula talinayaa in caruurtooda dhaqanka xun ee faaxishka ka ilaaliyaan sideedana mar hadda aragto jacayl oo laga hadlayo loolama jeedo wanaag loogama jeedo waxa loola jeedaa dadka dhalinyartu inay isdhex galaan faaxisha inay dhacdo in maaragtay wax walba la banaysto ayaa loola jeedaa maaragtay dhaqankana waa dhaqan shirkiya oo khatar ah oo akhlaaqda dadka muslimiinta lid ku ah runtii nabiguna sallallahu alayhi wasallam iska dhaaf mid fisqi iyo maaragtay dawada ku haya iyo shirkiya markuu Madiina yimid dadka reer Madiina laba maalmood oo ay ciyaari jireen oo dabaaldegi jireen baa jiray lamana sheegin wax gaar ah xumaan inay sameyn jireen way ciyaari jireen kaliya way dabaaldegi jireen nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ka diiday wuxuu yiri ilaahay azza wa jalla laba maalmood oo ka fiican buu idinku bedelay ciidul fitriga iyo ciidul maata adxaaga marka dhaqan waxa weeye Soomaalidu ay kaga dayatay dadka reer galbeedka ah oo gaalada ah oo masiixiyiinta ah oo dabaaldegay arkeen dadna way iska raaceen waxay tahayna ma yaqaaneen macnana u garanaya waxa jirto kale markii laga soo tago wadaadka ay ka soo jeedo iyo diinta masiixiga ay ka soo jeeday waxaas dhinaca kale markii laga fiiriyo jaceylka ay ku salaysan tahay iyo dadka waxa ay sameeyaan actionka ay qaadaan oo ah fiyorayaasha iyo hadiyadaha ay isu iibiyaan iyo jaceylka ay ka hadlayaan arintaas hadii aan xataa maalintan u dabaaldegin arintaas ay kula tahay in hadiyada la isdhaafsado ama ma aragtay waxyaabaha noocaas ah oo jaceylka si kale loogu dabaaldego iyadan xataa maalintan qusaynin say kula tahay arinta horta marka hore waxay sameeyaan waxa la yiraahdo maaragtay card ama postcard ay ku qoran tahay wadna ku sawiran yahay oo hadallo yar yar oo iyagu jacayl ka muujinayaan hadal waa ku jecelahay iyo maaragtay wax saas ku qoran yihiin qofkii uu saxeexaya qofkii uu lahaa waan jecelahay buu u diraya marka arintan horta ganacsi bay noqotay oo ujeedada ugu weyn hadda ka dambaysa waa ganacsi waayo waxa la yiri Mareykan kaliya waxa la yiri sanadkii 1 bilyan oo kaadhkaas baa la iibsadaa marka kompaniyada iibiya lacag badan bay ka sameeyaan Mareykan kaliya waxa la yiri sanadkii 150 milyan oo kaadh baa la iibsadaa ha dadka ugu badan iibsadana waa dumar baa la yiri dumarka u badan 80% waa dumar baa la dadka iibsada oo nimanka u dira arinta marka horta sidaas weeye waa ganacsi arinka labaad waxa weeye mar hadii falkii uusan banaanayn wixii isaga ka dhashayna ma banaana macnaha falkan iyadoo ciid aan mid ilaahay jireeyay banaanayn sideedaba oo ciidul adha iyo labadii maalmood ee ilaahay inoo sharciyay maalmo aan ahayn in loo dabaaldego aysan diinteena banaanayn haddana waxa ka sii daran
fisqi iyo shirki bay tani dabada ku haysaa iyo diin shirkiya bay dabada ku haysaa marka ficilkii mar haddaanu bannaanan in maalintii loo dabaaldego in kaadhadhkii aad iibsatid oo aad ku caawisid oo aad dirtid oo tiraadid maaragtay iyaduna waxay noqonaysaa fisqigii oo aad ka qayb qaadatay qofkuna maalan labadii qof ee isqaba hadallada noocaasa inay isku yiraahdaan way bannaan tahay laakiin dee ma aha wax maaha ciid ma noqon karto dadka aan waxba ka dhaxayn oo isqabina inay hadallada isku yiraahdaan oo warqadaha nooca isu diraan ma banaana waa khatar sababtoo waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa sacabka maxaa hadaan wax ku jirin maxaa habeenkii loo tuma labadan qof ee isqaba inay wax iyagu isku yiraahdaan markay gaar yihiin iyo hadallo maaragtay noocaas inay isku yiraahdaan way bannaan tahay laakiin waxaan bannaanayn maalintan in lala eegto waayo maalintii ilaahay wax fadli gaara u yeelay fadli gaaray leedahay مثلا sida maanta Caashuura oo kale Nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu amray in la soomo sida maaragtay maalmaha Shacbaan bisha maalmo kamid oo fadli loo sheegay bisha Ramadaan 10ka u dambeeya 10ka bisha Dhulxijja fadli baa loo sheegay marka horta mar labaad aan isla fahanno maalmahan la fadilayo fadliga loo sameeynayo laftigiisa munkara haddaan wax kale la sameeyo oo tashriic bay noqonaysaa inaad maalintan adigu aad xukum gaar u yeelayso Ilaahay Azza wa Jalla uu yeelin haddaynu waxaas oo dhan ka nimaadno dadkan waraaqaha isu qoraya ama dhar ama guriga iska bedelaya ama booskaadho wadna ku qoran yahay isu diraya ma maalintaasay la eegteen mise sanadka oo dhan bay sameeyaan maalinta hadday la eegteen waynu sheegnay waynu ka jawaabnay arrintaasi waa caadaad mushrikiinta laga keensaday fisqi badanina ku hoos jiro ما يفهميسها هدي أي سنة كوردن سمايان أو إنسان مالين تلا إيجان أما مالين كلا قفصان واحد ضد كنا وحنا إيسا واحد عادة لقد جينا واحد ضد خوف مركو دانا وصل مالين جارا لا إيجان أما سنة كيبا مالين كم يدا وصل لا إيجان واحد عادي وضد كويس سمايان تهاي maaha waxaas cidina waxyaalaha mubaaxaadka iska bannaan way laakiin waxa laga hadlayaa maalin gaar ah anniversary oo gaar oo la yiraahdo maalinta jacaylka inaad waxyaalahaas la eegatid oo aad u dabaaldegtid oo aad weynaysid way waxa laga hadlayaa maaha inaadan xaaskaaga waxyaalo u samayn karin hadiyada siin karin maaha maxaa maalintani maalmaha kaga duwan tahay oo aad maalinta jacaylka u leedahay marka laba midun weeye inaad dadka mushrikiinta ah ee Roomaanka ah ee maalintan dabaaldegi jiray inaad ku dayanaysid oo aad shirkigoodii iyo fisqigoodii ku raacsan tahay iyo maaragtay inaadan ku raacsanayn haddaadan ku raacsanayn maalinta ha qiimaynin ha weynaynin ficil gaar ah samaynin guri gaar ah dhiganin okay hala eeganin maalintaas haddaad aaminsan tahayna de waxa way wad ku jirtaa oo wixii ay sameynayeen baad kula jirtaa marka sababta la isula doonanayo maalintan iyo afcaashan baa waxay keensanaysaa inaad aaminsan tahay maalintan oo dabaaldegayso maalintan in la dabaaldego oo maalin munkar inay tahay waa sheegna daas marka sababtaan ay u banaanayn dadku waxyaalahan aad sheegtay inay sameeyaan waa hagaag gabagabadii iyo gunaanadkii marka maxaad kala talin lahayd dadka Soomaalida oo maanta dhageystayaasha barnaamijkan codka dhalinyarada dhageysanaya maxaad kula talin lahayd ama aad ka dhiilayd waxaan leeyahay walaalayaal hada baaldegina maalintaas ma jacaylku maalin ma laha qofkuna inuu yiraahdo qof gabadh aan isqabin inuu qofku ku yiraahdo waan ku jeclahay waa munkar gabadhina nin aan qabin inay ku tiraado waan ku jeclahay waan munkar warqada isu diraan waa munkar diiniyan ma banaana culimada haddii aad masaa'isha aad shaki ka qabtaan qofka caalimka ah oo magaalada aad joogto waxaad weydiin kartaa qofkaas ma ku oran karaa qof gabadh islaameed oo magaalada maraysa waa ku jeclay warqad ma u diri kartaa waxaan munkar weeye وعادات مشركين laga soo gaaray waa caadaad qalafsan fisqi badan iyo munkar badan baa ku duugan marka qofku waxa fiican inuu diintiisa ilaashado ee dhalinyaradu ay guursadaan guur xalaal guursadaan reerkooda iyo xaaskooda qaab diin oo islaamka waafaqsan ay ku maamulaan caadaadka munkarka ah oo dhaqanka islaamka lagu leedinkaga baabi'inayaan aad iska ilaalisaan hana dabaaldegina maalmaha jacaylkuna maalin gaar ah malaha wax maalinta jacaylka la yiraahdana ma jirto maalintan waxa loo dabaaldegayaa boqortooyadii Roomaanka waqtigii la sameeyay iyo nin la yiri nin masiixi oo wali lagu sheegay oo dhintay
oo la yiri dhalinyaro isu guurin jiray baa loo dabaaldegayaa waxaana wax idinka quseeyaa ma jiraan dadkan dabaaldegayaa laftigoodu tusaale yar baan siinaya kaniisadda la yiraahdo Catholic ayaa waxaan sameyn jirtay waagi hore sanadkii 1969kii ay joojiyeen inay aqoonsadaan maalinta ay xafladu aqoonsadaan ama maalin ay kalendarkooda ka saareen sababtoo waxay yiraahdeen waxyaalaha u soo dalashadeen waxa kamid ah waxay yiraahdeen lamaba garanaya taariikhdan waa la isku khilaafsan yahay bay yiraahdeen Valentine Day gu meesha ka timi waa la isku khilaafsan yahay marka iyagii kaniisadii baa qiraysa oo leh waxaan shaki badan baa ku jira iyo meesha ka timi idinkii oo muslimiina inaad dabaaldegtaan marka waa munkar wallahu a'lam mahadsanid intaasna dhageystayaasha qiimaha leh waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka codka dhalinyarada oo aan ku soo qaadanay Valentine's Day-ga ama maalinta jacaylka iyadoo uu martii noogu ahaa Sheekh Mahdi Warsame sidoo kalena aad maqlayseen fikrado kala duwan ee ay ka qabaan dadka qaarkood maalintan intaan mar kale dib hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa ismaqal dambe